السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaad saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudane ku xiran janaalkan waa mar kale muuqaal cusub. muuqaalkan waxaan idin kaga diyaarinay musalsalka walaalaha xalqadiisa 73aad gooskeyska labaad oo ah mid aad iyo aad u xiiso badan. haddaba daawad intaan gooskaas guda galin haddii ay tahay markii soo booqato janaalka subscribe noo sar sidoo kale muuqaalkan like noo sar waa maasantiita ka bacdi ku soo dhawo gooskooska oo maanta aad iyo aad u xiiso badan. gooskooska ugu horeyntii waxa uu ku bilaabanayaa qoftii Suuzaan ahayd Cumar dhasho hadlayso isla markaa la hadlaysa Axmed Ilmaas oo ku dhahaysa laba cisho ayaa ka dhacay Cumar dhalashadiisa waxaa rabnaa in xaflad weyn markaan u dhigno oo marka dhalashadii Cumar ayaa soo dhawaatay. marka kulay Cumar dhalashadiisa saxda Suuzaan ayaa garanaysa balse waxay la tahay markaan inay u dabaaldegayaan dhalashadii ay asagiya Aasiya wada dhasheen. yacni hadda koor waxaa lagu dhahay de adii Aasiya mataane ayaa tiin ayaa lagu dhahay oo qadiir uu ogaa xitaa. marka waxaa laga yaabaa in taas u dabaaldegayaan lagana yaabaa inay Suuzaan ay dhalashadeedii u sheegtay bal adii saadaali maxay kula tahay arrinkaas dhalashada labada dhalasho mid u dabaaldegaya. waatay muuqaalka xigeen waxaa arkaynaa yarkii baarkii ahaa oo la hadlaya IBK oo dhahaya bal ka war haddii si wada jira u ciidno ama yacni ciid marka ay xaggaas noqoto yacni ciidu yacni meelo badan ayaa loo fasiri karaa balse ciid waxay ka wadaa xaflad yar oo dabaaldeg oo kale ayaa laga wadaa. kadibna IBK amsiin waxa ku dhashay kale inta hadal ma dhaafinayso. halka muuqaalka xiga arkayno ninkii Saarbe ahaa oo Yasmin iska fadhiya isla markaana hadlayo wuxuu dhahayaa hadda ma sidan ayaad go'aansatay. waqtigaas waa uu iska fadhiyay marka musalsalka walaalaha gooskooska iyo hadalka yacni lama qiimeyn karo. waxa laga marka xalqadu timaado waxa laga yaabaa in hadalkaas marka uu dhihi doono uu taagan yahay oo wax yar kadib waxa arkaynaa isagoo Aasiya hortaagan oo Aasiyana ay dhahayso waan ogahay Saarbe uma dul qaadan doono oo uu ka masaari doona walaashiisa Yasmin. waxay ka wadaa yacni Yasmin waxa casuumay Cumar iyo casuumo ku dhalashadeedii ma Cumar wax yar kadib uu hadlaya wuxuu dhahayaa hadda ayaan kor dhahaya Yasmin waa walaashayda waliba tan ugu fiican ayuu dhahayaa Cumar. marka haddana Cumarkii ayaa hadlaya wuxuu dhahayaa dhammaantiin ardayda oo beritoor waa dhalashadeeda ee iswada keena sooma maqashiin. marka Aasiya hadalkaas waxa uu tiri oo kaliya maadaama Yasmin dhalashada laga casuumay Saarbe ayay hortaagneed waqtigaasi oo ku yar dhaga hadlaysay inkastoo bade maqalayay oo uu hortaagnaa. muuqaalka xigana waxaa arkaynaa yarkii Dooruuk ahaa oo hooyadiisa markaan go'aansaday in uu iskaga tago isla markaana hooyadiisa ay daba ordayso ku leedahay wiilkayga ha tagin oo ku baryayaa ee joog asaguna uu alaabtiisa intuu qaatay iska tagay. gooskooska runtii waa uu yaraa laba waxoo muhiim oo noo hodhay oo aad iyo aad u xiiso badan. marka muuqaalka xigana waxaa arkaynaa Sheeguli Orhaan oo meel wada fadhiyo iska sheekeysanayo. odayga Orhaan ahaa wuxuu soo istaagayaaba arooskani ma ahan mid sii waari doona mana doonaya intaa ka badan inuu sii socdo talo arooskaasi waa kee islaantii Goonuul ahayd madur buu go'aansaday in uu furo. tada kale Goonuul halkay ku dambeysay xalqadii u dambeysay waxaan ogeyn odayga Tarhaan ahaa gaari jirsay halkay ku dambeysay kow odaygii yarkii Uljaan ahaa mar arkay markii odayga gaariga la tirsiyay waa kii iskuulkii iska joogay de college kale tamaan college waa iska joogay odaygaasina wax dhibaato ama soo gaaraysa markaan waa caafimaad doonaa qofka ay dhibaato soo gaaray balse waan ognahay waana muuqaalka xiga waxaa arkaynaa labadii gabdhood ee sirta kale ahaayay Leila iyo Suuse oo isla markaa aad moodid in ay hotel weyn ku kulmeen oo dad aysan ka agdhaweyn isla markaana jaranjar ayaan u aqaana ma sheekar waxa uu taqaantid balse meesha laga soo daandago kale marka dabaqa kor loo fuulo kale aan wishta ahayn ayay ku dul sheekaysanayeen isla markaana gabadhan Leila waxaan rajaynayaa inay gacanta ku hayso fiidiyoogii. Suuseen way baraysaa waxay ku leedahay Leila ay fiidiyoogan bal iska keen walaalay halkeed u ordaysa istijiyo. Leilaadin waxay leedahayba aanu Cumar baaba markaan u soo sheegay yacni goosko saxaysa ma dhays kulli waan qiyaasay waan garanayaa kulli waxay soo istaagaysaa baanu arrinkan Cumar waan u sheegayaa oo kaliya kadibna way isqabsanayaan mootaan qoftan Suuse ayaa gacanta xogaa ku dhageysa stage ba ku dhaysan maxaa ka qaldan halkeed u ordaysa horta stage bal waxaan ka dhaadhiciyo kadibna gacanta markay ku dhagtay kadib tan kale waxa dhaysaa isii daahan tage qalaleeb way isla dhacayaan balwadoodiiba way garanaysaa micnaha de way rogroganaysaa way soo soconaysaa jaranjarta kadibna jaranjartii soo dhamaynaysaa waa miskiintii yar saasay ku dhacdayba qoftii Suuse ay halkaas saacad la fadhiisanaysaa Leila baa halkaas soo istaagaysaa. waa tahay midda isweydiinta bada waxa weeye Leila sidaan miyay ku dhimatay horta jaranjarta Turkiga badi waa lagu dhintaa jaranjarta Hindiga moodina filim Hindi xabad baa lagu dhintaa ama musalsal Hindi
laakiin jaraanjar laguma dhigto laakiinse markay turki sheekadu taagan tahay jaraanjar waa lagu dhintaa oo qofkii jaraanjar kasoo dhaca ama dee kasoo galgasha sidaas ayuu nagu daayey oo waa uu ku dhimanayaa. xitaa waxaaba dhaantaba tusaaleer hadda ka hor nabhadiyo haddii aad xasuusatiin yarkan lagu magacaabo kaan ee dhintay isku meel bay kasoo dhaceen balse nabhad wax yar baa saaciday oo kartoon yar meel dhihi kara kartoon bay ku dulacday isla markiina wax badan ba isbitaalka may ku jirin markiiba way caafimaaday. laakiinse suuse iyo kaan is haystay markay meel kasoo wada dhaceen uu kaan hoosta maray oo suuseen ay korka ka marday maadaama qoftu buuran tahay qoftan musalka dadka jira qoftu ugu buuran waa is dhihi karaani markay korka soo martay miskiinkii yaraa wadnihi wuxuu wax ka soo gaaray sidaas ayuu ku dhintay. musalsalka walaalaha qofka ugu talagaleen in uu dhinto waa u dhimana tusaale kale dhinsiina islaantii aasiya iyo qadiiriya dhashay gaariga caakif bay isla saareen kowdha markii gaarigii kale uu kusoo duldhacay xalqadii koobaad waxaa dhimatay islaantii oo kaliya caakif xitaa caadi buu u socday wax dhaawacoo soo gaari ma jiro. marka turkida hadday qof dhahaan wuu dhimanayaa qaab yaro basiid ah oo fudud oodan filayn unbaa qofkii loo dilayaa marka dambe ciil baad u dhimanaysaa war waxan maxaa ka qaldan ba dhahaysaa waxan waa sheeko kalaad dhahaysaa. marka leyla runtii waa jilleen fiicnayd halkaasi ayay miskiinta reer leylaha nagu macsalaamaysay ma sheegi karin dib loo soo celinayo oo go-aanka laga laaban doono balse dee saan maalmahan oo dhan ba idiin sheegaynay toddobaadadan baa leyla miskiinta yareed halkaasi nagu macsalaamaysay. markii hore waxaan moodinay inay kala dhexgeli doonto suusi iyo cumar balse waqtiga u saamixi waayo meel aan faraha lala gelin bay faraha la gasho cafra oo shaydaamada baxaraysay ficnaan lahayda fiidoogaas inay cafra aragto cafra booskaasi dhimato. marka suuse iyo cumar farxad baan u rajeynaya suusena weliga sidaas ay u khiyaanto cumar oo waa shaydaamad moogta qoftan maalinta la ogaado le arkaynaa bal wixii dhaca kolley fideoga intaan ayaan ku ekeenayaa insha allah waan rajeynaya inaan fideo kale kanaalkan xoog usoo geliyo kanaalka bayjoog iyo macluumaadada kale ka socda ana insha allah kana ku dadaali doonaa. marka muuqaalka like saara waanigu saaxiibkiina khaalid wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.